بسم الله الرحمن الرحيم ولما أركان وويلكي معجزة waxaan sheegay in October ay noqon doonto xilliga ugu qalabsaneed ee qaraxa siyaasadeed ee Soomaaliyeed soo wajaha waxaana bilowday qaraxii siyaasadeed ee hadda socda waxaan maanta la yaabanahay oo aniga iga dhaadhici la war bal waxaan waa la gartay nimanka la yiraahdo nimanka la dhaho dowladdan iyo farmaajo waaba la gartayba waaba isku darkooda waxaan gaarayninba 70 laakiin 200 oo waa dad siyaasadda ku cusub dadkani oo jaha wareersan laakiin 282 xildhibaan aqal odayaal ku jiraan oo dad badan oo soo jeeday ku jiraan war maxaa ku dhacay ma say wax u jiraan war siyaasadda Soomaaliya way qalabsan tahay siyaasadda Soomaaliyana falkoon dadka Soomaaliyeed kan u weyn iyo kan u yar cilada ay qabaan waa madax adeeg cilada kale oo ay qabaan waxa ay tahay war khalad ninka markuu meel madax u yahay khalad buu sameeynaya khaladkii markuu sameeyana seeli ilaha la khaladkii buu khalad kale ku madax adeeg khaladkii buu khalad kale ku saxaya markay dhiishi iyo fandaalka kala dhacaan oo meel wax laga qaad laga indhahay wada cadeynayaan saas u fiirinayaan dad dulqaad lama aha dadka Soomaaliyeed dad wax maqlaya ma aha dad war ani maalinkii dawladdan la bilaabay ilaa maanta laga joogo step aan idin sheegayo dhan baa dhacay inta dawladda waxaan doonayay inay ka tala baxdo inay salka dhulka saarto inay degto inay ka leexato ujeedkayga intaas buu ahaa laakiin si lama fahmin maanta dhooqadan lagu dhex jirana wali dad baa ku sii adag oo daawanay war maxaad sugaysaan war Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan samata bixiyo ay u baahan tahay haddii aad wadaan oo sidan aad ku sii wadaan fid 4 sano kaasi qasaasanaysa oo halaag aan laga soo qaban karin ummadda ay galaysaa halaag ummadda aan laga soo qaban karin marka wax la saxay war haddu madax xumaaday ma loo dhutunaya hangaraara loo dhuti waa laga tuuraya mid kale hadana la keenaya mid kale waa in la keenayo hadana lagu daya hadduu xumaado waa laga tagaya 4 sano aan 5 qof marna xataa waxa la helayaa midkii dalkan samata bixin lahaa baa la helayaa laakiin Soomaaliya ha u fadhinina mid un qabiil ahaan ha u taageerina aan meeshan waxba ka wadin dhibaatada siyaasadeed ee Soomaaliya murugada sii gelinayo waa wax qaldan weeyo oo aan loo dulqaadan karin weeyo war waxaan awoodaan wax soconaya ma ah war dad qoom dhan oo rogmaday baatiin qoom dhan oo rogmaday war dalkan wuxuu leeyahay 120 cadow buu leeyahay oo ka soo sheekay war 120 kan cadow nin la socdo oo barbar dhiga oo ka dusa loo baahan yahay maanta marxalad xun baan ku jirnaa oo aan laga samata bixi kareynin oo sunnoonos ku kan soo bahaystay meesha uu ku yiro kala diidiinka haddii waa lagu tastay meesha lagu tastay ilaahay soo ma jiro heerkii baan maanta taagana maanta waxa loo baahan yahay war kii 6 bilood naga khasaaray inaan dhan ordas ka tag mid kale keenina kii 6 bilood naga khasaaray ordas ka tag mid kale keenina Soomaaliya ninkeeda hadduu helo magac Allah idinku dhaaraya waa sanadkii yar waa 8 bilood bay Soomaaliya amni ku noqonaysaa Soomaaliya xasilooni siyaasadeed buu u baahan tahay walaalayaal Soomaaliya halaagan ku soo socday bisha 10aad ee aan la qaban doonin ee lagu kala yaaci doono oo qof Soomaali oo dambeeta ee aan ka digayo shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka waa inuu tilaabo qaadaa waa inaysan dhag u dhigin waa inaysan eegin war nin mas'uuliyad loo dhiibay oo ka soo bixi waayay oo mas'uuliyadiisa meel xun galiyay wax laga daawanayo waa qaldan yahay farmaajo waa nin qaa'in wadana oo dalkani dhibaato galiyay way oo dhibaato kale siyaasadda colaad oo dadkii hadana hub iskugu dhiibay way maxaa ka daawanaysan marka waaye oo ogeyn inuu khalad galay oo ogeyn inuu dadka soo horfariisto khaladkaas aan galay hal yacafiyaad san u saxna aan lahayn dhibaatada haysatay ka mid tahay walaalayaal dhibaatada neesta kamid war qofku bilaadanka uu khaldami karaya laakiin dad aqlo u saaxiiba ayaa jiro oo loo baahay inuu intu soo noqdo war maxaa sameeynaa waa khaldamay in Soomaalida dhibaatada haysto waxa weey nin kasto meel fuula isaga ayaa ku sii adag khald intuu galo khald kale ku sii saxaya ilaa ultimo meel wax laga qaban waayo la tago taas ma sugaysan war dawladda Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa baarlamaanka Soomaaliya markaa war fadhiga ka kaca war Soomaaliya waa lagu kala tagayaa war Soomaaliya waa isku soo hubay war Soomaaliya qabyaalad iyo qurunkiiba ku soo laabatay war Soomaaliya hubba ka socdo war Soomaaliya bisha 10 waa lagu kala carari war Soomaaliya halaagi siyaasadeed baa la galaya war maanta la xakameyn kabrey war qof xil inta loo dhiibay ka soo bixi waay wax uu noo taray ma jiraan waa ka tagaynaa mid kale noo dhaamo cusub oo ku baqtiyaan nasiibsano kaasna wax tan waa ka tagaynaa mid kale ilaa Soomaaliya sida la yahay hadii qabyaaladii la wada raacay oo maanta la aadi laay war Soomaaliya maanta wuxuu baahantay samata bixin waryaana samata bixin kare in la yiraahdo Soomaaliya maanta loo baahan yahay qof kasto ra'yi fiican keeno oo wanaagsan la raaca loo baahan yahay sidaas aan ugu la talinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.